arrintaasi doosha qmar arrintaas kortaagis ay u baahan tahay arrintaas waxa weeye dalalkan gaar ahaan marka la iskaashadaan dalalkan shidaalka soo saara 7 milyan oo foosto wax soo saarkooda ma kordhi karaan waha laakiinse sababta ma taqaana waa sabab siyaasadeed waxayna diidayaan haddii maalin walba dal laga saaro suuqa shidaalku koota ahaa waayo oo maalin walba dal laga saaro in marito mid kale laga saari karo Sacuudiga laga saari karo sidaa daraadeed waxa ka jira heshiis afjaaq ah ayaa u dhaxeeya oo ah inaan arrimahaas oo kale la sugu heeliyo wixii waa ganacsato waa sharaa'ig wadamada markan oo kale shirkadaha u shaqaysanayaan marka ma yeelayaan mana asmacayaan inay shidaalka soo saarista kordhiyaan marka laba ay noqonaysaa dalalka reer Yurub inay foostadii shidaalka ay $300 siistaan waliba iyadoon sifaysnayn iyo inay ruushka ay la xajoodaan taasoo jirta ayaa hogaamiyihii ugu horeeyay reer galbeeda oo noqday hogaamiyaha dalkan lagu shiray Australia inuu la kulmo madaxweyne Putin kaasoo kula kulmay magaalada Moscow wuxuuna ugu baaqay in dagaalka la joojiyo hogaamiyahaas oo leeyahay Karl Nehammer waxa uu ugu baaqay dhigkiisa dalkaasi in ay dagaalku u yahay mid ay ka dhalan karto dambiyo dagaal si adraadeedna la joojiyo iyaga oo ku wada hadlayay magaalada caasimadda Moscow waxa uu sheegay Nehammer inay muhiimadu ay tahay in uu arko in dalal badan ay nabad raadinayaan taasi waxa sidoo kale loo qaatay inuu hogaamiyahaasi uu farriin dalka reer galbeedka oo iyagu khaati ka taagan dagaalkaasi si loo joojin lahaana doonaya ay markaasi u farriin ka siday dawladda dalka Russia saas oo ay tahay waxa ay wali sii wada ayaa la yiri in ay ciidamadeedii ugu badnaa ay keento bariga dalkaasi sidaas waxa sheegaya afyaanka aqalka Pentagon ee dalka Mareykanka waxda gaashaandhigga oo ah John Kirby ayaa sheegay in dawladda dalkaasi ay sii wado in